subax wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaka waxaan u baxaynaa degmada Balcad ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaan guriga ka baxaynaa. Waxaa ila socda Axmed. Waxaan rabnaa inaan aadno Balcad oo aan kasoo duubno muuqaalo qurux badan oo aan idiin soo gudbino bilicda iyo horumarka iyo quruxda dalka aan idiin soo gudbino. Haddaan meesha tagno waxaa tagi doonaa beeraha, sidoo kale waxaa idiin soo gudbin doonaa waxyaabo badan oo aan idiin xiiso geliyo oo idiin soo duubi doonaa. Let's go. انت على سيارتي على يوتيوب لا saaxiib yaal waxaa kasoo degnay baawur. Waxaan waday baawurkaas aad u jeedaan. Waxaan imid degmadii Balcad socdaal dheer kadib. Waa goob aad u qurux badan. Waxaan idiin soo duubi doonaa muuqaal maadaama aan meeshii saaka ka soo baxnay aan imaanay. Waxaan idiin soo duubi doonaa muuqaal qurux badan oo aad ku indho-doogsan doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Yes. subscribe for more videos مهرو aad iyo aad علي والله جيسي بعد كده welcome to meesha malagaala aan fahmino aad iyo aad waxa waaye dhulkaaga hooyo marna ku dalxiis marna ها marna ku xaragow. ها soo dhow warka waa sheeg saarteen aad iyo aad waa mahadsantihiin. niku qurxa bas niku qurxa aad iyo aad waayahay. Dhalinyaradan waa dhalinyaro reer Balcad ah. Waxay dhaheen kusoo dhawow degmada Balcad lagama laha. Gaariga hadda kasoo degnay waxaan usii dhaqaaqi doonaa goobta dalxiiska. Waxaan idiin soo gudbin doonaa muuqaalo tayo leh oo aad u qurux badan. halkan waa darxan, waa geedkan waxaa la yiraahdaa mukuy. Qofka yaqaana mukuyga wuxuu ka mid yahay geedaha ka baxa webiga jiinkiisa ayuu ka mid yahay. Markaan aqoonin waxaan leeyahay iska barta. Waa meel runtii markaad timaadid kusoo jiidanaysa oo dalxiisayaal badan oo imaadaan halkan. waa meel aad u qurux badan. Halkan aan idin tuso muuqaalkeeda. waad aragtaan meel aad u qurux badan. saaxib biyo xireenkan wuxuu ku yaalaa degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe. sidaa u jeedo halkan waxaa ku yaala biyo xireen la dhisay sanadihii 1980. halkan sidaa u jeedo waa biyaha way degan yihiin, kaliya way socdaan laakiin ma la dareemayo.
ila soo soco halkana waa ujeedaa biyaha ku qabo biyaha aad ayay u kacsan yihiin farqiga u dhexeeya marka wuxuu yahay halkan waxaa ku yaala biyo xireenkii ayaa ku yaala saaxiibada halkan ka shaqeeya waxa ay noo sheegeen mashiinadan waxa ay qabtaan waxa ay hagaan ama ay maamulaan biyaha halkan markii webiga uu biyo yareeyo kuwan ayaa la xiraa halkan ayaa buuxsamaysa markii halkan uu buux dhaafin rabana halkan ayaa la furaa biyihii dib ayaa loo sii daayaa sidaas ay degmadan ku heshaa beeraheeda biyo ku filan dalagga halkan kasoo baxana sidaas ayay ku helaan biyo ku filan saaxiibada sidaa ayaa noo sheegan oo halkan ka shaqaynaya waxaan weli ku sugannahay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saaxiibayaal hadda waxaa ka soo degnay biyo xireenkii halkaas ayaan ka soo degnay waxaa noo sharaxayay axmed oo xoogaa reer balcad ah ayaa noo sharaxayay meeshan waxaa loo sameeyey iyo birahaas iyo biyo xireenka qaabka loo maamulo iyo biyahaas ay u socdaan nala socda waxaan weli joognaa balcad waxaa idiin soo gudbin doonaa oo idiin soo duubi doonaa muuqaalo tayo leh oo xiise leh fadlan lagu dhiirigeliya subscribe-ka iyo followga page-kan waa mahadsantihiin wiilkan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada beertan iska leh soo ma beertan alaala abkooya leh ha abkoogi micnaha awowgiisa iska leh beertan ayuu maaragtay isagaa ilaaliya waxaa noo soo raacay inuu noo sharxo beertan siday tahay waxyaabaha ka baxa annagoo kusoo wareegi doona qeybaha ay ka kooban tahay beertan iyo waxyaabaha ka baxo hadda waxaan u jeedaa cambe iyo moos iyo mxog iyo bocor geley laftirkeeda way ka baxdaa waxyaabo kala duwan ayaa ka baxsa bal haye dadka beeraha aan jecleen maxaa leedahay beeraha aan jecleen waxaan dhalaay dadka Soomaaliya beeraha aan jeclahay hal fasho sax hal fasho dhalaay caadi dadka Soomaaliya dadku waxaa leedahay hal fasho sax caadi waxaan dadka laftirkan ku dhiirigelinaynaa in beeraha la fasho halkan waa motor webiga meeshan barkadan waxaa lagu waraabiyaa biyaha beeraha markuu beeraha qudaarta lagu waraabiyaa halkaasay soo maraan kadibna waxaa waaye webigana waa kaas cunaysa axmed cambaha ku yaala degmada balcad oo gobolka shabeellaha dhexe biyaa qaban rabaan
waxaan raacaynaa ari daawada waa kaas axmed wuxuu yiri aniga mar hore ugu dambeysay xitaa wuxuu yiri waa kala aqaanaa uu yiri magacyadooda ariga marka xogaa uu iiga fiican yahay sida ariga loo raaco aniga beri hore ugu dambeysay aan raaco beri hore ugu dambeysay marka oo ku faraxsanahay inaan maanta ari meel daaqay inaan arko aad ayaan ugu faraxsanahay saaxiibayaal xiliyadan galabtii markii la gaaro dhalinyaro ayaa halkan ku caaweysa waxay sameeyaan qaaci iyo heeso sidoo kale waxay halkan ku cunaan oo ay ku damaashadaan cunooyin kala duwan oo ay ka soo qaateen magaalada sidoo kale qudaar ayaa jirta beertan ka baxda oo ay halkan ku cunaan damaashaadka sidan ayuu noo socdaa واحد waan filayaa inaad muuqaalka daawateen oo aad ka hesheen waxaan jecelahay inaad nagu dhiirigelin doontaan inaan soo gudbino bilicda iyo horumarka dalka sida beeraha iyo deegaanada reer guuraaga iyo goobaha taariikhiga ah ee uu dalku leeyahay guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa muuqaalkeena oo aad ka daawanaysaan baraheena YouTube-ka Instagram-ka iyo sidoo kale barteena Facebook-ga oo aad inta badan dhiirigelintiina iyo commentiyadiina aan ka helno waa mahadsantihiin kulanka xiga waxa uu noqon doonaa muuqaal aad ka heli doontaan oo idin xiiso gelin doona nabadgelyo